السلام عليكم أصحاب سيتي مفيعنتين maanta waxaan sameysanaynaa qado fudud jikin baradho basal bariis aad u macaan badan sameyso foorno la'aan si fudud asxaabta waxaa kaloo sameysanaynaa bariis caraf badan oo aad u macaan badan idinkana karso waa ka heli doontiin insha Allah meeshaan waxaa ku haysanaa salad barbarooni ukun iyo liin meeshaan waxaa noogu diyaarsan baashidni asxaabta haddii aad channelka cusub tahay waxaan idin codsanayaa channelka Maryam Majaw inaad subscribe like share comment ha ka ilaawin simakada marka la xural cayn la mudleehay haqiiqo malabe mashquul kugu noqoy waxaad mutashaqurayst makada marka la xural cayn la mudleehay haqiiqo malabe mashquul kugu noqoy meeshaan waxaa ku haysanaa jikin ama hal xabo dooro oo iswadato sidaad u taqaano jikinka marka u horeysa la soo gado aad ayuu u qodooban yahay waxaa dhexgelinaynaa biyo si oo uu dhalaalo wax xiin waa arki doontaa asxaabteeda maxaa la dhahay jikinka mise doorada saad u taqaano hal xabo iswadato waaye fridge-ka laga soo bixiyay saas u yaala maasha Allah doorada ayaa ku sawiran 1300 gram waaye maxaa la dhahay marka ugu horeysa marka soo gadatid mise haduu guriga ku yaalo waxaa la rabaa baraf waa ma ogtay doorada dhan baraf waaye xoogaa yar biyo ku dhigay si uu barafkaas dhan u dhalaalo markuu barafka dhalaalo doorada xoogaa isfurfurto markaas ka bixinayna insha Allah biyo badan kula dhig si uu barafka iyo waxaas dhan ugu dhalaalo insha Allah asxaabta waa kana jikinkeena ama dooradeena biyaha waa kasoo dhaxbaxsanay wuxuu noo jiraa baaqul hadda waxaa rabnaa inaa jarjaran dooradeena xibin u googoono waa kana dooradeen aad iyo qurux badan tahay way nuuraysaa way dhalaalaysaa u jeedii asxaabta meeshaas Maryam Majaw gacantay ku tilmaamayso waa doorada ama jikinka qoortiisa quruxda badan oo nuurayso ay dhalaalayso asxaabta hanay ilaawin subscribe share comment hanay ilaawina waxaan idin codsanayaa channelka Maryam Majaw inaad subscribe like share comment ha saarto insha Allah si fiican u saara hanay caajisina lacag maaha inaa la saar waa muhiim anay waxay noo tahay wax muhiim ah waa kana jikinkeena ama dooradeena waxay noo jirtaa baaquli waxaa rabnaa inaan ka dhaqno barafka iyo waxyaabahaas waayo waxaa la soo bixi filinjeer ama talaaj sida u taqaani Soomaha asxaabteeda waa kana dooradeena waa jarjarnayna sida u jeedaan horena waan soo sheegnaa xibin u jarjarnayno asxaabta waxaan idin codsanayaa channelka Maryam Majaw inaad subscribe like share comment noo saartaan hanay caajisina kun like na gaarsiiyalahan idinkaan soo gaarsiiseen waa maasantiin asxaabta videogan dhameystaa ka caajisina waa ka faa'iidi doontaa insha Allah asxaabteeda warkii dhan waa leedin soo dhameeyay ritaaja idin soo dhameysay maasha Allah waa kana marka dooradeena jikinkeena waxa dhan waa sameysanay waa jarjaranay waxaan oo dhiman inaan dabka saarano oo aan karsano maxaa la dhahay doorada filinjeera laga soo bixiyay soo marka ina xoogaa yar liin iyo wax iskaaga mirtid wax walba marka karsanaysa liinta muhiim waaye waxay ka caawinay jeermiska iyo waxaas oo dhan inay ka disho insha Allah wax marka karsanaysid liin iskaaga mir asxaab meeshaan waxaa ku soo diyaarsan baaqul waxaa rabnaa inaa ku diyaarsan carafta ku darsanay jikinka meeshaan waxaa ku haysanaa jumbo safaraan iyo laba nooc oo ah xawaaji hal nooc waa la soo tumay hal nooc waa midka loo talagalay jikinka iyo ama doorada sida taqaanid ama malaay waxaas inaa lagu darso mid kale tan waa xawaaji dhuudhuub meeshaan kale tan waxaa ku soo darsanay kabsar iyo tuun xaab kabsar caleenteeni iyo carafteen waa isku qasanayna si oo xoogaha isku dhex galaan okay u noqdaan waxaa ku haysanaa qaando foodeeda cusbashii waxaa ku darsanayna carafteen kabsar caleenteeni iyo tuunteena waa kaas asxaabta waa u jeedaa waa kana jikinkeena ama dooradeena waa noo soo kartay waxaas meesh fadhiyeen waa saliid Maryam Majaw ma ku darin wax saliid ah waayo jikinka dhow wuxuu dhalaa saliid asxaabteeda waa kana marka jikinkeena sidaan qurux badan oo ku soo karay waxaas u jeedaana waa saliid sida ritaaj idin sheegtay meeshaan waxaa ku haysanaa xawaajigi hadeer waxaa ku darsanaynaa hal qaando saliid ah waxaa kaloo ku darsanaynaa qaando labaad maasha Allah waxaa sameynaynaa jikinki iyo maxaa la dhahay xawaajiyaasha isku dareena digsiga kula shubayna si hadhow markii dabka lagu celiyo oo si fiican dhiidhiin oo macaan badan oo noqoto jikinka sida uu jirka ugu galo anay ilaan jikinka maduweena maahano bis laakiin waxaan rabnaa inaan isku huurino si macaan badan oo qurux badan caraf badan inuu noqdo
siduu kusoo baxana waad arkaysaan insha Allah videoga dhameysta insha Allah waxaa idinka codsanaya inaad channelka subscribe saartaan sidoo kale comment ii soo qor commentiyadiina waxay tahay dhiirigelin insha Allah Ramadaan soo dhow waxaa rabaa Ramadaanka insha Allah afurka waxyaalaha insha Allah fudeedka badan inay idin soo geliyo idinkana waa ka heli doontaan soo waa ka marka asxaabteeda la socda asxaabtada u sharagalay meesha waxaa ku haysanaa waa baradho iyo barbarooni baradhada qaabkaas u soo jarjaray qafiif kama soo dhigin waa couscous maasha Allah qaabkaas quruxda badan u soo jarjaray waa soo nadiifiyay meeshan waxaa ku haystaa waa karooto si dheer u soo jarjaray waaye meeshan waxaa ku haysanaa basal guduud oo soo jarjarnay si wareeg waxaa rabnaa waxaas dhan inaan ku darsano jikinka waa kana asxaab jikinkeena hadan waxaa ku dareynaa wixii haday soo jarjarnayne idin tusay baradhadii karootadii wixii dhan waa ku darsaneynaa asxaabta waxayeen waa arki doontaa insha Allah asxaabta waa kaasa baradhadeeni waxa ku ridinoona Maryam Majo ayaa sameynayso waa kaas baradhada iyo wixii ku shiishoosa waxaan basasha inay ku shubto laakiin way soo taas maxaa ku dhac maanta waa kana hadan wixii toosinaysa baradhadii iyo wixii isku dhaxgalaan oo dhown baradho fiican u soo baxdo biseel qofka marka cuna oo ka caajisay hada mobile fiisana xitaa mobile iska dhigay marka mar afgashta macaankiis dareemayo ma sha Allah ana horta waa ka helay macaankiis marka cuna hadana waa kana asxaab basasha ay ku ridaysa basashii way ku riday waxayeen waa arki doontaan insha Allah hadana waa kana asxaab Maryam Majo waxay toosinaysaa basasha waxay rabtaa basasha iyo baradhada dhown isku dhigin macaan badan yeel basasha asxaab muu baan biseel badan waxaa la yaraa qajac iyo caraf badan asxaabta waa ka saay meeshan waxaa ku haysanaa doodadeena biseel waaye laakiin waxaa rabnaa khudaarta iyo waxaasna isku dhigin xoogo isku shiil asxaabteeda waa kana basasha iyo barbarooni kulaha alla barbarooni jecliya qudaarta iyo chicken marka ku darsanay waxaa ku miiraneynaa jeexlin haday saad aragteen marka chickenka dibka saareynay waxaa ku miiranay jeexlin hadana jeexi kala ku miiraneynaa si dhadhan iyo caraf u sameeyso leenta saad wada ogtihiin waxaan lahaay caraf way leedahay dhadhan macaan badan way leedahay marka waa ka marka waxaas aad arkaysaan waxaa waaye carafti iyo wixii ku daray waaye insha Allah asxaabta maxaa lahaay hadana dibka saaranayna waad arkaysaan si ku soo baxdo dibka marka saarano kor waxa ka saarayna kor iyo hoos bidaba ka saarayna insha Allah si ay kor iyo hoos si fiican ugu bislaato oo macaan badan maxaa lahaay qofka cuno waxa la raayo inuu dhaho ma sha Allah had kadib kan leeyahay ogya wax kalma leeyahay ogo asxaabteeda waa kana chickenkeena ujeedna Soomahan wuu bisil yahay laakiin xogaa yar bisel oo maxaa la dhahay sida Arabay maahan xogaa yar maskooto waaye baradhada kasi karna ileen wax muhiimad ah hadda u saarna waxaa waaye baradhada iyo karootada inay si fiican u bislaadaan chickenkeenan xogaa yar inuu dhicaanki iyo wax isku dhaxgal waa muhiimada u saarna waxaas waaye baradhadan xogaa yar maskooto waaye xogaa yar dibka ku celinayna huuris bisa u dhiman waan arkeena insha Allah marka huurino qaabka ku soo baxday insha Allah waxba yaa idinka hor dhicno ujeedna Soomahan chicken hoos dhan wuu ka gaduutay ma sha Allah qurux macaan way kana marka asxaabteeda marka isku soo laaban diyaar waaye ujeedna baradhada markii saas la hore ka bislaatay beel qaabka Arabay waaye dibka ka dajinayna dibka marka ka dajino insha Allah waxaad arkaysaan qadada kaleete hadda chickenka waa diyaarsanay wax kaliya noo haray waa wax fudud waa briiski iyo maxaa lahaa iyo shidniga noo haray soo waad arkaysaan chicken fudud qaabkan la u sameeyo waxaan la duwaayay oo saliid badan kaaga baxay waxaasna iska daa waxaan fudud chickenkaaga biyo ku karso liin yar ku miiro hadhow marka ka dhasid caraf iyo waxaas u sameey xawaajiyaal iyo wax la isku darso maxaa la dhahay waa kaamar kor la ugu shubo karooto iyo maxaa la dhahay baradho iyo basalna diyaarso isku huuri macaana ku dhahay kan la dubo waxaa ka qiimo badan midaan la dubin insha Allah meeshaan waxaa kusoo dibka waxaa noo saaran digsiga waxaa ku jiro saliid waxaa rabnaa inaan ku karsano bariiskeena meeshaan waxaa ku haysanaa jumbo basal qarfo heel xawaaji waa ka marka waa dalcanay insha Allah sidoo kale meeshaan waxaa ku haystaa haday chickenka markaas sameynay kabsar iyo toon soo shiiday inta ka hartay waaye intaana raba bariiskan inaan ku kariyo insha Allah waad arki doontaan ila socda waa ka marka asxaabteeda waa dalcanay meeshaan waxaa ku haysanaa waxaa waa cusbo
bariiska inta aad karinaysid ay ku xiran tahay cusbada inta aad ku daraysid. Cusbada kaaga badan yaa cidda dhiig kar iyo maxaa la dhahay waxa ku ridin. marka asxaabteeda waxaa sameynaynaa bariiskeena waa biyeysaneynaa, hilib kuma jiro ilaan chickenkeena gooniya u karsanay. Hilib hadduu ku jiro xoogaa waa sugleen, laakiin had sugis iyo waxaas dhan nooga baahan ma fahmino. Marka waa biyeyneynaa, markaa biyeeno waad arkaysaan insha Allah wax kaloo xigo ila socda. waa kana asxaab bariiskeenu soo badbadooyaa oo jeedin. waa kana intan waxaa ku haysanaa bariis. waa kana bariiskeenu waa dhaqanay, waxaa rabnaa hadda inaan ku shuban meesha. waa ku shiin kiskis ayaa soo qaadana, waayo bariiska wuu badan yahay laakiin saaid ma u badno, hal mar ma la soo qaadi karo. waa jeedin kiskis ayaa ku shubaneynaa. waa lagu shubayaa ma jeediin qarfaha wax dhan ma carafta lagu dar meesha laga dhex arkoyaa. waa kana macaan ku dhaani waa cunay waa ka helay. jikinkan iyo bariiskan saa u helayani ma la sheekay karo. waa kana hadda waa loo laaqoyaa bariiska. waa kana qarfihii iyo wixii carafta wixii lagu dar dhan laga dhex arkoyaa asxaabta waa u jeediin. waa kana waan la walaaqoyaa. waa kas bariiskeen waan walaaqanay waan daboolnay. waa kana asxaab bariiskeen wuu noo soo bislaaday saan oo soo baxay. daayin waxaan igilo bariiska markaa dhaqaysiin 3 mar dhaqa, waayo hadhow bariiska wasaq ayuu wataa. 3 mar dhaqa wasaqsaniga baxdo. waa kana bariiskeen waa walaaqanaynaa waa noo soo bislaaday, waxa ku dar dhan waa laga arkoyaa. maasha Allah macaan caraf maasha Allah aslan qaaca ka buuxay carafta leh. waa kana hadda waxaa ku darsanaynaa kan bariis guduudinay magaciisa ilooway maxaa lahayd safaraan. safaraan waa soo xasuustay ana asxaabta hadda ogaada wax marmarka qaar wax baa iska iloowaayo bini'aadna ahay hayaabina ayuu qoslina. waa kana asxaabtan bariiskeen saan noo soo baxa qarfii wixii dhan waa laga arkoyaa. hadda waxaa rabnaa safaraankii waxayna bariiska xoogaa isgaarsiin. meeshan waxaa ku haysanaa dooradeena. waa kana qura doorada way noo soo bislaad, baradhada waa biseel, basasha wax dhan waa kana saan ku soo baxay. aad uu qurux badan yahay caraf macaankiisa digsiga la dareemaa minjeedidu quruxda baradhada basasha wax dhan saan ku soo baxeen. maasha Allah uu qurux badan yahay. waa u jeedaan asxaabta idinkan sameeysta macaankiin waa arki doontiin saana u aragna camal. sameeysta macaankiisa waa ka heli doontiin insha Allah. waxaan codsanayaa channelka Maryam Majo subscribe, like, share, comment ha ka ilaawina. fadlan channelka subscribe noo saara insha Allah. haddana asxaabta waxaan tusaa wax xiga. meeshan waxaa ku haysanaa ukun dabka ayaa saarnay. ukunta waa qolof anaga waxaa ka rabnaa ukun fuufuur ukunta waa kaasaa weynoo kare intee karaysan waa sugeynaa. ukunta markay ratid inaa ukun fuufuur samaystid waxaa rabaa inaa biyaha inaa oo karkarisid. meeshan waxaa ku haysanaa bariiskeen. waa kana waxaan tusayaa inuu biseel yahay oo fiican yahay bariis qurux badan yahay. waa kana asxaabta oo jeedin bariiskeen soo qurux badan yahay. waa bariis furfur maasha Allah ani waa ka helo horta. waxaan codsanayaa channelka Maryam Majo subscribe daraadey u saara. waxaan codsanayaa channelka Maryam Majo subscribe, like, share, comment ha ka ilaawina. meeshan waxaa ku haysanaa yaanyadeena wax isku soo shiidanay waa walaaqanaynaa. waa kas waalintido si xoogaa isku dhex gasho. waa kana saas ayuu yahay saas oo qurux badan yahay. waxaa sugeynaa digsiga waa dabooleynaa. waxaa sugeynaa intoo dhink soo noqonaa oo kaana bisbaas yaanyada waxaa ku soo darna basal bisbaas wax dhan hal digsiga ku soo shubanay. hadhow markoo noo bisaa hal mar ka dejinaynaa. bisbaaska waa noo shiidan yahay. waa kas waxaa ku darsanaa hal fur oo saliid cadeey waa kas waa qasanaynaa. digsiga waa dabooleynaa. waxaa sugeynaa ilaa bisbaaska soo noqonayo. hadda waa bibi waa u jeedinaa asxaabta. waxaa sugeynaa ilaa bisbaas uu ekaanayo oo adeeg ka noqonayo. waa kana asxaab shidniyeena wuxuu noo saaran yahay dabka. meeshan waxaa ku haysanaa ansalaatadii barbaroonigii ama saladka ansalaata ama salad sida u taqaanid ukunti liinti wixii dhan meesha noo jira asxaabta. waa u jeedin barbaroonigii wixii ukunti liinti saladka ama ansalaatada sida u taqaanid meesha noo jira. ukuntan waa soo fiiqnay. waa u jeedin barbarooniga saladka ansalaatada ukunta liinta waxna waa soo fiiqnay. meeshan waxaa ku haysanaa baashidniyeen wuu soo badbado. waa u jeedin asxaab markaan waa karaa wax yar oo dhiman. waa kas wuu soo karay bes maasha Allah macaan caraf. waa kana qiica ka buuxaasna waa u jeedaa ku dhahay kuleel. asxaabteena idinkan waxaan rajeynayaa inaad samaystaan subscribe hana ilaawin. bye bye.